guddi hoosaadka khayraadka dabiiciga iyo macdanta ee golaha wakiilada ee Somaliland ayaa kulan isugu yeedhay shirkadaha korontada siiya magaalada Hargeysa taasi oo lagaga arinsanayay sidii shacabka ku dhaqan magaalada Hargeysa ay u heli lahaayeen leer tayo leh waxaan halkaasi ka hadlay mas'uuliyiin sarsare oo ka socday shirkadda korontada ee Sunpower shirkadda Sunpower ee maamulka waa bishii koobaad ayay leedahay 0.79 ka soo bilowday ka jabisay oo 0.6 ka dhigtay cent toddoba bilood ka hor waa 0.79 buu raaj markii shirkadda Sunpower la sameeyay $1 waa hadana hoos bay u soo 0.79 ka dhigtay 3 or 2 years gudahood waa markii saddexaad ee kumbanigu u jeediyay leer hoos bay caqabado badan oo dadka leerka naga isticmaala aanay dareemi karin ba ayaa ku xeeran leer ku xeeran dadku markay isticmaalaan kadib baa lacag la weydiiyay taasina waxay qaadataa in laga helay inaan laga helin qof waayo hoteelo dhan aad wax siinayso dukaano dhan aad wax siinayso laga yaabo after 2 or 1 month in meesha ka baxo oo maarka hawlo kale ku yimaadaan ama guriyihii bay qof kiroolayaasha guriyaha kale guuraan marka technical loss commercial loss waxyaalo fara badan oo noocaas ayaa haysta kompaniyada haysta waana qodob kamid ah qodobada dabka inuu leerku si degdeg ah price hoose oo aad u jaban loo helo dieselkii haddii uu jabay maanta adduunka waxa barbar socda baatiska spare part ayaa barbar socda tusaalaha gudoomiye gaari ku dhacay tower ama tiir meel ku yaal shoorku celiya ay mishiinada wax ku noqdaan laga yaabaa shoorka ku noqdo mishiinada culayska gaaray in baatiska aan Hargeysa markii Hargeysa ay waqtiisnaato inta abu dabi doorso ama maarad doorso meel kale doorso waxyaalaha la ka fano baatiskaas kamida waxa kamida salary waxa kamida compensations mago dhacdooyin fara badan baa soo maraya leer baa dilay roob baa wax dilay khatar fara badan oo noocaas guriyaha gubtay dad hawlo fara badan baa jira tagaska naftiisa ay isugu jira cashuurihii oo dhan ayaa la soo habeenii maalin waxaan u fikirnaa si bulshada ay leer jaban hay wax Hargeysa ma aqbali karto maanta 1 hour ama 2 hours leer ka maqnaa waxa laga dhaliyaa dabay waxa laga dhaliyaa harooyin biyo laga dhaliyaa waxa laga dhaliyaa solar waxa laga dhaliyaa biomass waxa laga marka maadaama awooddu mitaalkeenu yahay waxay muhiim tahay markii hore ku soo wareejinay genereetarada hadda ay u gudubnay stage-ka labaad kaas oo u baahan investment in la geliyo leerku hadda kuma jabayo wuxuu ku jabayaa lacag u baahan tahay in la geliyo anoo Sunpower hadda markii hore soo baahnay 1 milyan baan gelinay sanadka dhamaadkiisii mashruuc furay waxaan jeedi inta aan furay fraction bay ka tahay qayb yar bay waxay ka tahay leerka Hargeysa u baahan oo waliba soo habeenkii la shaqeeyay waa maalintii ayadu ku shaqeeyay problemku wuxuu yahay halkan soo hayn halay taageero society waxay taageerto waxba yani nin waxa kaga baxaya nin cadaanayo la talin jiro saarada Nigeria la talin jiro inuu mishiina guriga ku shina ambassador tisi bidina idinkuna soo baxtay wali ma aragay diesel oo ku shubtaan baashana ku kaadidaan guriga competition ka keenaya waxa keenaya private sector kan gacanta ku haysa ee la iibka baqtiin marka waxna waan tarnay qaalina uu yahay qaali wuxuu yahay waa diesel ilaa diesel ka laga baxana meel la geeyo kaloo aanu garanayna mutaqaana sidoo kale waxa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha guddi hoosaadka khayraadka dabiiciga iyo macdanta ee golaha wakiilada ee Somaliland xildhibaan Waabeeye waxa indhaweyd baday kulay sidaas xaafada socday cabashooyin hal jeer ay soo gudbinayaan dadka loo adeego ee leerka qaata sida awgeed golaha gudidayadan deegaanka iyo natural resources ko waxaan u yeernay kabriyada kala Sunpower Telesom indabirta iyo gaafane runtii dad mas'uuliyiina oo aqoon-yahana oo maxay ahayd xog badan haya ayaa nooga qaybimi waxaan ku faraxsanahay in saxaafadan oo furayd oo ay si iyaguna transparent ah ay uga warrameen mas'uuliyiintaasi sida ay maxay ahayd ugu adeegaan bulshada sideedabana dadka inoo adeega ee kambariyadeenuna xaq bay inagu leeyihiin
customerskuna xaq bay leeyihiin runtii mas'uuliyad bay muujiyeen waan u mahadnaqaynaa dadkana waxa loo baahan yahay inuu customer fiican helo cidda u adeegaysana uu ilaaliyo waxyaalo badan ay kambaniyadu ka dhawaajiyeen waxaana uun mustaqbalka ay inoo ballan qaadeen inay ku hawlan yihiin inaynu helo koronto jaban laakiin dee Rooma maalin lamada dhisin baa la yiraahdaa waa inuu u samraynaa kambaniyadeenna oo danba ku jirta iyaguna inay dadkana shaqaalaysiiyaan iyagana waxa looga baahan yahay inaanay profitka uun eegin ama aanay dee maartay uun xisaab buuran inay macaashaan eegin iyaguna ay bulshadeena maanta dee aan shaqo la'aanta iyo waxyaalo badan jiraan iyaguna inay ka fuuliyaan waxaan filayaa si wanaagsan inoo soo jiiban Aidarus Maxamed Caynaan Goobjoog magaalada Hargeysa